ninkii bad iyo bari iyo galbeed dhex jibaaxay si uu u helo hal xadiis oo rasuulka ka sugan qof walba muslima oo diinta wax ka yaqaana waa hubaal inuu maqlay imaam Bukhari wa xaafidkii axaadiista mar la weydiiyay xifdiga wuxuu yiri ma ogi wax uga wanaagsan xifdiga qofka wax akhriska iyo hanka sare u gudbinta maskaxda daahsoon ee aadanaha ayaa meesha qabata xifdiga wuxuu ahaa ninkii dhakada ka qabtay 300 oo kun oo axaadiis haddaba noo daaya aan guda galnay taariikhdii imaam Bukhari مجعيس وأبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقرة ابن بردزبة الجعفي البخاري وحونا كل شيء مقالة بخارى أو كتها لدل كمان تلو يقانو أوزبكستان وحوناها أصل كيسي فارسي أبيه سنة وحكمتها محادثين تيواوينا إيرير بخارى وحونا عانكوها ururinta iyo xifdinta axaadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam Bukhari abihi wuxuu geeriyooday isagoon garaadsan oo dhabtii hooyadii ku jira wuxuu uga tagay hanti fara badan oo xalaal wuxuuna oran jiray abihiis maalkayga oo dhan ma garanayo hal dirhan oo xaraana oo ku jira yani abihi wuxuu wabaal u hayay in maalkiisa dhamaantii wada xalaal ahaayeen إمام بخاري مركو 10 سنة قاري إلهي وحولابتي سكبوح شيء حيسها برشدا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوق لي دوكسيق أحاديث تلوك الوريو بخارى سنة كدب وحو مراجعو يتحراع النغضي معلمين تيسي أو مررك قاركوت كسحن جري متنقا يعني لفظقا إيو أساندا ها سلسلة لوك الوريو أحاديثتا إمام بخاري مركو لحية طبنجر سدي وحوضوشا كغيبي كتبي قرين ابن مبارك إيو وكيع إمام بخاري سرين تحفظقا إيو سقنان تفاهنك أو أوليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحاليا بي أو أي أمكا كردي علماء حلقا نوليد arrimaha dadka cajab galiyay imaamku lahaa waxa ugu weynaa xifdigiisii Xaashid ibn Ismaaciil oo Bukhari isku xir ahaayeen wuxuu yiri Bukhari wuxuu axaadiistana gala baran jiray culimadii Basra axaadiistana waan qori jirnay isaguse ma qori jirin arintaasna waan ku canaananay kadib Bukhari wuxuu codsaday inaan waxaan qornay u keenno wuxuuna ku kordhiyay 15 xadiis oo uu dusha kore ka sheegay waxaana kutubadeena ka saxan jirnay xifdigiisii Bukhari la soco insha Allah qaybta labaad oon ooga hadli doono xifdigii Bukhari wassalaamu alaykum